السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada. Hadda waxaan rabaa inaan la share gareeyo saddex ama afar website oo aan daily basis aan isticmaalo maalin walba markii aan wax bedelayo ama aan creative aan sameynayo. Hadday noqoto inaan image soo sameysto, hadday noqoto inaan wax size ka soo bedelo, hadday noqoto waxay rabto baahato. Afartan site is basically afarta aan everyday isticmaalo mar kasto. Marka haddii aad tahay qof oo designing iyo photoshop iyo maxaa la dhahaa graphic designer background aan u lahayn oo ani camala oo waxaas dhan ba aan garanaynin oo raba leh bis inuu simple image soo sameysto. Simple image kaasna isku markii waxay siin saaro waqti badan oona ku lumin hadday tahay page likes iyo hadday tahay image oo macnaa markaas aan wax ku xayeysiinayo iyo hadday tahay video yar oo aan kala tuurayo waxay rabto baahato. Afartan website aan isticmaalo without graphic design professional aan u haysan oona zero macnaha ka oo waxba ka aqaanin graphic design si u shaqeyso ayaa macnaha waxaan rabaa inaan la share gareeyo haddii aad tahay qof anoo kale oo macnaha graphic design waxaas aan garanaynin oo macnaha shaqana ku lahayn oo laakiin rabo inuu sameysto wixiisa quickly meesha ka isticmaali leedahay qaabka isticmaali leedahay. So Canva kooda hore waxa waaye website-ka oo haddii aad rabtid oo kale inaad logo sameysid, haddii rabtid wax kasto aad u baahan tahay ayaad ka isticmaali kartaa. Website-kana waa free. All you have to do waxa waaye canva.com aad tegaysaa kadibna login aad leedahay. Marka login tiraahid waxaa ku furi kartaa image waxaa ku furi kartaa emailka oo gmailkaaga, hotmailkaaga, yahoo wuxuu rabaa ahaado ayaa ku furi kartaa. Marka almost muddo 5 sano wax ka badan inay ka badan tahay umalinaayaba ayaan Canva isticmaalaya. Weligeena lacag ma bixin Canva. hadda email cusub waayo meeshan ugu talagalay presentationkii waxaas inaan ku sameeyo oo cashiradan haddan ku dhameeyo. Marka all your designs meeshan ku qoran tahay designadaada dhan ku arkaysaa. Haddii aad rabtid marka inaad Canva si loo isticmaalo aad baratid oo macnaha aad u baahan tahay quick tutorial oo kale waxaad ku dhufan kartaa YouTube Canva si loo isticmaalaa ama Canva tutorial oo ku dhufan kartaa kadibna meesha ka ogaan kartaa. Laakiin ani hadda waxaan rabaa wax aan quickly aan u baahanahay inaad ogaatid oo kale. Haddii aad rabtid logo inaad sameysid oo kale waa laga yaabaa inaad logo u baahato meeshan ayaa ku dhufanaysaa. Laakiinse aniga saan badanaa logo uma sameysto oo this way uma sameeyo logo waxaan u sameeyaa sida dadkii oo ku jeebron oo kale macnaha saas camal aan logo u samaystaa. Laakiin haddii aad rabtid inaad logo saan u samaysatid oo kadibna aad industrigaaga uu yahay kaba soo qaad dental oo kale dentista meeshaas ku qoraysaa kadibna theme yar aa kusoo baxayso yar oo logo sign kadibna magacaaga ula baxaysaa. So haddii aad rabtid oo kale kaba soo qaad anaga waxaan sameynay real estate. So haddii real estate xagaas ku qoro ama waxaas dhan ku qorin just aan ku qoro home for example. So waa kana hadda wax yar oo logo oo macnaha waqti badan aanan gelinaynin kusoo baxayso. haddii rabtid waxaan dhan inaad tirtirtid saas ugu dhufanaysaa kadibna hawada ka saaraysaa. So marka haddii aad rabtid logo inaad samaysatid meeshaan ka samaysan kartaa. haddii aad rabtid wax kale waxaa rabto u isticmaal. So ani badanaa Canva markaan isticmaalayo waxaan u isticmaalaa image-ka aan rabo markaas inaan samaysto kale ayaa meeshaan ka isticmaalaa. So haddii adiga aad rabtid oo kale image oo sida Facebook xayeysiinteeda oo kale waa inuu ku aadaa 1080 by 1080 oo macnaha size-ka image-ka. So haddii marka image aad rabtid oo kale inaad sign garaysid aad macnaha isticmaashid oo kale create leedahay kadib meeshaan ku imanaa kadib image-kaas hadduu meesha kugu jiro oo kale meesha kala soo bixi kartaa. hadduu gudaha computer ku jirona waxaa leedahay upload kadib marka upload ku dhufatid kadib waxaa ku dhufanaysaa upload media marka ku dhufatid kadib meeshaas kasii bixinayaa device-kaaga kasoo dhex raadinaysaa. So marka meeshaas ugu soo darsanaysaa. So haddii image-kaas uu yahay image oo aad rabtid oo kale in aad size-ka wax yar qaldan oo kale maadaama oo 1080 by 1080 bis oo isticmaalayo Facebook oo u baahan yahay markii aad page like sameynaysid iyo marka carousel ads aad create garinaysid iyo 1080 by 1080. So marka saas aad macnaha ula samaysaa. So hadda 1080 by 1080 oo macnaha sax waaye. So marka haddii aad markaad jiidaysid aad fiirisid qaybta yar ee madow oo geeska meeshan ka jiidaya agteeda the width waa arki kartaa meeshaas ay ku qoran tahay W-ga markaad sii wado marka meesha kor geysid oo arkaysaa 1080 by 1080 inay kaaga soo baxayso sax okay. waxaa ku soo hartay markaas Canva. haddii macnaha aan ku dheeraanin waxaan rabaa marka inaan isticmaalno site-ka ku xigo
sitekan wax kale uma isticmaalo waxaan u isticmaalaa markaan rabo in aan macnaha canva inaan isticmaalo rabin oo maadaama markii aan sizeska isku aadinayo kale xogo ay siteka uga qaldayo kale ayaan macnaha u isticmaalaa kanna sababtaan u isticmaala waxay tahay upload image dhe kadibna ku dhufo kadib meeshaasuu size macnaha sizeka uu markaas yahay oo kaaga soo saaraa so haddii aan rabo kale inaan ka dhigo kale 1080 by 1080 isku markii meeshaan ku qoraa 1080 by 1080 kabacdi resize aan ku dhufanaa kadib waa kan meeshaas uu iga soo saaray kabacdi download meeshaan download ku dhaha kabacdina computerka isaas ugu soo galaa so websitekan wax kale uma isticmaalo haddii marka aad isticmaalaysa websitekan waa un just ina quick size aad samaysid oodna waqti badan aadna ku lumin oo kale bis aan isticmaalaa waxaa kusoo hartay websiteka ku xigo waa remove background kuleyba waa fahamtay backgroundka inaan remove garay haddaan rabo kaba soo qaad imagekan oo kale aan haystay oo macnaha baddaas iyo waxaas ay ka muuqdeen hadda meesha haddana way ka maqan tahay hadda saas uu egyahay haddaa fiirisid oo macnaha aad imagekan isha ku haysid macnaha marna backgroundkiisa green iyo waxbaa ka muuqda marna waa blue marna waa sky marna waa xeeb marna waxba maa saas camal so marka haddii aan rabo kale inaan remove gareeyo backgroundka oo logaas ama imagekaas wuxuu rabaa aado so hadda kan haddii noqoto kale kaba soo qaad waxaan isticmaalaya kan oo ku dhuftay kadibna saasaan u remove gareeyey kadibna waxaan leeyahay download marka download dhaho kadib meeshaas isoo fulaa jaburon remove background so haddii aan ku laabto kale kii aan samaynayno kale so kusoo baxaya haddaan rabno inaan fiirino marka meeshaan joogtid oo kale ayaad arki kartaa so haddii marka aan ku dhufto kale kan waa soo jiidi karaa meeshaan soo saari karaa macnaha waxaa loogu talagalay background remove markaad samaynaysid oo kale inaad u isticmaashid un bis inaad loogahaaga meel saaratid ama image wax horba ahaado so marka kan badanaa ani haddaan u isticmaalo waxa waaye hadda waa aragtaa meesha markaan soo saaro sidiisi uu qurxon yahay laakiin haddii intaan saaro just backgroundka caddaanka bisa ka maqan oo macnaha transparent waaye dadka oo graphic designki waxaa sameeya kulley garanaya haddii meesha ay ku jiraan oo kulleyba inay leeyahabiina laga yaaba ay leeyihin waayo waqti iska luminaya ma photoshop inta tagtid meesha ka samaysid inay dhahayana laga yaabaa laakiin photoshop markaa tago waxooga ku wareeraa so obviously I use this okay waxaa kusoo hartay siteka ugu dambeeyo Capwin is site oo walaa cajiiba oo wax kasta ku samayn kartid aniga badanaa kan waxaan u isticmaalaa haddii aan arko kale video iyo haddii aan arko kale kaba soo qaad videogaas inaan rabo inaan quick edit ku sameeyo ama haddaan rabo inaan studioyaha inta image aan raadsado kale kaba soo qaad hadda image oo haddaan rabo inaan raadiyo xaggan markaan ku dhufto kale imagekan raba meeshaan kasoo saari karaa haddii aan tago kale hadda meeshaan ku dhufto kadib waxaan leeyahay imagekan oo kale aan baanay oo waxaan leeyahay oo kale for example xagga markaan ku dhufto imageka markaas aan rabo sizeka haddaan rabo meeshaan ka bedeli karaa dhinacan canvaska meesha ku qoran tahay saas ka bedeli karaa haddii aan rabo kale 1080 by 1080 sida macnaha Facebook oo kale 1080 by 1080 kadibna macnaha picturekas 1080 by 1080 haddaan rabo laakiin aan image raadsada aniga meeshaan aan ku dhufanaya imageka markaan ku dhufto kadib kaba soo qaad waxaan rabaa inaan la imaado image oo aan rabo page likes iyo waxaas so example haddaan isiyo kii lofkii oo kale oo macnaha page like ku sameynay oo kale kiciyey maadaama dadka xoogaa iska baari jilcan yihiin adina waxaa la rabtaa moogtaa inaad wax oo markay arkaan ay like saarayaan oo kale na u saartid so hadda kan oo kale it looks nice hadda kan oo kale oo barobay kartaa isku markii oo aad dhihi kartaa okay I'm gonna test this one haddii marka aad fiirisid oo kale kan macnaha saan dhaadid kadib markaas ku dhufsatid kadib waxaa leedahay export meeshay ku qorantaa kor haddii oo macnaha aan ku dhufano edit oo meeshii aan joognaa macnaha moogtahay so haddii aad rabtid oo kale happy aad ku tahay oo kale saas aad ugu dhufan kartaa haddii laakiin aad rabtid imagekii aan macnaha backgroundka aan ka saarno oo kale inaad ka soo qaadatid oo macnaha aad saas ugu soo kor tuuraysaa kadib waa kana jaburon haddii aad rabtid oo kale picturekan lacala haddii laga xada lacala oo qof kale oo iska qaato in macnaha xogo jaburon ay ku noqoto inay meesha ka muuqato jaburon oo xogo qofka uu ku dhibtoodo inuu ka saaro oo kale haddii rabtid oo kale ayaa saas ugu dhex tuuraysaa macnaha so hadda jaburona meesha ka muuqato oo haddii aan rabno kale inaa macnaha dilacala nagala xada xataa oo qofku dhowti inuu tirtira dooraba wuxuu inuu ku dhibtoodo so jaburona iyadoo background leena meesha ka dhex muuqataa marka hadda haddii marka aad rabtid oo kale saas inaad u samaysatid waad samaysan kartaa kadib markii aad hawshaada dhamaysato ayaad waxaa leedahay import
kadib meeshaan uu kaga soo saaraya markaas haddii oo hawsha oo macnaha isku dhamaato waxaa laga yaabaa inuu qaato couple of seconds maybe 30 seconds iyo waxa noocaasa so markaas uu ku dhameeyo ayaad download leedahay kadibna diyaar uu ku yahay waxaa soo haray oo aan rabaa marka inaan intuso imageyadan oo kale hadda waxaa laga yaabaa inaan imageyadan oo kale aan rabo oo macnaha guryahan oo kale kaba soo qaad markii aan xayisiinay waxaa helnay 4-5 customer oo kala nooca hadda maadaama 12 customer aan helnay waxaa laga yaabaa 12kaas 5 kamid ah in macnaha guryo oo beec ahayaan marka guryahaas oo kale image ka soo qaadanay imageyadaas oo macnaha 5 ayaan soo qaadanay 5taas image ayaan waxaan rabnaa marka inaan guryahaas xayisiino mid waxaa laga yaabaa inuu ku yaalo Hargeysa mid waxaa laga yaabaa xaafad oo Hargeysa kamid ah inuu ku yaalo adiga kaba soo qaad 5 xaafad oo Hargeysa ku taalo inuu ku wada yaalaan oo kala nooc ah so marka waxaa laga yaabaa marka inaad rabtid inaad guriga sawir ka soo qaadatid kadibna xaafadda uu ku yaalo kala ku soo qoratid kadibna inta qiimihiisa yahay wax soo dhan inaad soo samaysato kana haddii uu ku yaalo xaafad kale oo idin Hargeysa saas camal saas so marka 5 image ama 6 xaafad haddii saas camal marka u soo samaysato carousel ads u saarto kadib website-kaaga u soo dirsatid kadib qofka uu ku dhaw gurigaas meeshaas ku yaalo oo qiimihiisa intaas yahay aan rabaa inaan soo arko saas uu kula soo xiriiro ayaa macnaha u awoodaa marka guryahaas imageyadaas meeshaan ka qorxsan kartaa haddaa rabtidna macnaha meeshaan intimaatida ka samaysan kartaa so hadda uu noo diyaariyey download aan leedahay marka download tiraahid meeshaan ayuu kaaga soo saarayaa so markaas waa fiiri kartaa Jebron image hadda ujeedaaba macnaha wax oo saas u sii weyn maan haddii marka imagekan oo kale aad test garaysid waxaa laga yaabaa 99% inaad ku heshid qiimo aad u jaban markii aad macnaha sameynaysid page like iyo markaa sameynaysid whatever markaa sameynaysid so kaba soo qaad waxaa sameynaysaa oo kale waxaa raadinaysaa oo kale what do you call it waxaa laga yaabaa inaad raadinaysid image oo aad u baahan tahay wax weird ah oo macnaha qofku markuu arko kale thumbnail oo kale thumbnailkan so meesha hadda weird hadda ku qoro kale waxa qof markuu arko oo macnaha maskaxda isbaar ahaan aan ka rabtid oo kale so hadda kan oo kale isbaaro fiican waa daartid oo kale qof inaad macnaha aad so hadda u jeedaa imagekan waxaa laga yaabaa markaan san u jiidayo inuu size-kiisa u qaldooyo so hadda kan oo kale macnaha waxa ka dhigtay thumbnail waxaa laga yaabaa businesska iyo wax xayisiina inuu yahay ama videogaas inuu yahay qof xogo macnaha inaan uga sheekeynayo kale qof xogo iska mashquulsan ama shaqadii waxa laga yaabaa inaan service oo wax noocaas ku saabsan inaan ka sheekeynayo marka adiga waxay ku xiran tahay thumbnail marka raadinaysid ina macnaha wixii ina u bedeli kartid wax adiga xogo maskaxda markaas soo jiidan karo marka haddii kaba soo qaad meeshaan oo kale haddii guryo aan kareynin oo kale haddii kaba soo qaad funny home oo kale meeshaan ku qoro waxbaa kasoo baxaya marka waxaas kasoo baxaya oo kale ayaa waxaan rabaa inaan ka dhigto thumbnail so guryihii Soomaaliya oo kale oo mudulkii iyo waxaas oo kale ama kale adiga waxa mar walba thumbnail ka dhigi kartaa wax qofka soo jiidaya so haddii aad tagtid oo kale YouTube oo aad ku qortid oo kale waxa markaas aad qorisid hadda thumbnailada ay isticmaalaan oo kale YouTuberka dadka YouTuberska ayaa ka fahmi kartaa macnaha videoga markaa sameynaysid videogaas inuu thumbnail lahaado waa thumbnailkaasna waxaa ku samaysanaysaa imageka da soo hesha meeshaan so hadda meeshaan ku qorto YouTube thumbnail oo kale hadda qorto oo kale waa ka arkaysaa daartidna Facebook waa qoraysaa oo macnaha Facebook cover oo kale iyo daartid meesha marka ku qortay ku soo hadda YouTube thumbnail hadan ku qoro kale hore ku soo saaraa meeshaan waa kan YouTube thumbnail xagga kaga soo saaraa marka waxa aad markaas u baahanto kale ee meeshaas laga samaystaa marka afartan website waa afar website oo daily basis aan isticmaalo oo kamid ah businesskayga marka ku soo dhawaada play with it ku ciyaar si macnaha jasanga macnaha iska faham si loo isticmaalo wax weyn maahan 3 trial 4 trial marka sameys kadib expert ku noqonaysaa especially hadda tahay ana camal oo waxaan designer iyo waxaas ana background kaaga oo nahin marka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh